shirkan oo uu soo qaban qaabiyey ugaaska beel ka mid ah beelaha dega koonfurta Soomaaliya ayaa waxaa ka soo qayb galay samadoonada beesha iyo odayaal ka tirsan beesha. Shirka oo ajandihiisu ahaa in laga soo horjeesto senator Iftiin Xasan Baasto oo ka mid ah senatarada aqalka sare ee baarlamaanka dowladda Soomaaliya, kaasoo ka mid ah xildhibaanadii buuqa iyo foodada ka kiciyey khudbadii uu madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ka jeedinayay kalfadhigii toddobaad ee golaha baarlamaanka Soomaaliya. ugaaska beesha uu ka soo jeedo senatarka oo lagu magacaabo ugaas Xaaji Cabdullaahi Maxamuud Baasay oo ku sugan degmada Diinsor ayaa sheegay inuu ka xun yahay arrinta uu ku kacay senator Iftiin, wuxuuna aad u dhaleeceeyey fikirkiisa gurcan kaasoo uu ka dhex sameeyey shir uu ka khudbeynayay madaxweynaha jamhuuriyadda ummadda Soomaaliyeed. waa kan ugaas Xaaji Cabdullaahi Baasay oo ka hadlaya arrinkan. bismillaahir rahmaanir rahiim. magacayga saddexan waxaa waaye Cabdullaahi Maxamuud Xuseen Baasay. waxaan ka tirsanahay degmada Diinsor, waxaana gooni ahaan ka tirsanahay beesha Coormale. ugaaska beesha Coormalaana ahay, waxaana ugaas aan ahaa 56 sano. waxaan isku taariikh ahayn Isaaq Uus nin la yidhaaho Allah u naxariistay dhintay, Xasan Jiru nin la yidhaaho joogo iyo wixii la halmaalo. waxaan ka xumahay warka aan loo fiirsanin sidii xoolo mooro la geliyo bera ahaan neefka hore meeshiis ka bera xoolaha idil waa ka beraan ahaan ka dhacay golaha ummadda ee nin beesha sheeganayo as ku dhawaaqay waxaan loo baahneen oo ka mid ah iscazil madaxweyne iyo dhulka waxaad la degtay dawladdaad la degtay iyo foore asluub xumo ah in meesha lagula kaco golaha sare. aad baan ugu xumnahay annakoo ka tirsan koonfur galbeed, Kismaayo, Bu'aale, intii la hadlaado dooy laga dego annakoo ku tirsan beesha Coormalana ah. qabiil lafweyn oo maanta haddii qabiil yidhaahana isku filan ah, haddii dawlad la yidhaahana koonfur galbeed ah, haddana federaal ah raacsan aan shigshigaynin. waxaan beenaynaynaa warkii meesha looga dhawaaqo qeyral mas-uulka ahay, aan ku beenaynaynaa cunugii annaka ahay oo warkaas sheegay iyo wixii ku fooriyey meeshaas asluub xumo. nin aan qaab xumeyn meeshaas waxaasoo kale kama sheegayo. waxaa la mid ah xoolaha markii mooro lagu xareeyo, halka neefo u hore ama loo ahaado ama geel ahaa hadiis mero waa ka wada beraan haddaanba la soo reebin oon la oodin. Kismaayo hortii ayba u bilowday inay la bero waxaan jirin la sheego. dawlad federaal ma rabno iyo saana nahay iyo wax kale laga sheego ma la qabno. Kismaayo aan la qabin, Diinsor aan la qabin, Bu'aale aan la qabin, Dooy aan la qabin, koonfur galbeed aan la qabin. annaka waxaan raacsannahay xukunka meeshaas noo yaalo federaalka aan raacsannahay, koonfur galbeed aan raacsannahay, dawladdaana aan raacsannahay. waxaan saxun u cambaaraynaynaa oon ka raaligelinaynaa madaxda koonfur galbeed. waxaan ku soo qatamaa warkii Iftiin Xasan Baasto waa nin Coormale ah, waana nin gafi, waana cambaaraynaa wixii sheegay. sidoo kale waxaa meesha ka hadlay samadoon Cabdullaahi Usmaan Ibraahim Goombire. alxamdulillahi wa tanaa'u lillahi wa salaatu wa salaam calaa ashrafil mursaliin sayidina Muhammadin wa calaa aalihi wa sahbihi ajmaciin. magacayga waxaa la yidhaahaa Cabdullaahi Usmaan Ibraahim, naanaystayadana waa Goombir. odayaasha beesha Coormale nin ka tirsan ayaanan ahay oo mas-uuliyiinta beesha Coormale ka mid ah. meesha aan ka hadlayana waa koonfur galbeed, khaas ahaan gobolka Baay, degmada Diinsor. annagoo ah beesha Coormale waxgaradkeedii ugaaska beesha Coormale oo Dooy, annagana aan nahay mas-uuliyiintii ku xigtay oo beesha Coormale. waxaan inta ka cambaaraynaynaa gafkii ka dhacay kalfadhigii lamada aqal daraad
gafkii ka dhacay oo looga gafay madaxda Soomaaliya ee qaranka nin kasto as ahaado waxaan cambaaraynaynaa gafkii ka dhacay madaxda qaranka kalfadhigii labada golaha ka dhacay ayaan cambaaraynaynaa khaasatan waxaan cambaaraynaynaa sanatarka ka soo jeeda beesha Coormale oo la yiraahdo Aftiin Xasan Baaste wixii as ku sheegay meesha wax beesha Coormale isla qabta ma ahan wax garadkeeda isla qaba ma ahan meel kasto ay joogaan waxaan ku tashanay ma aha waxaan raalli ka nahayna ma ahan waa cambaaraynaynaa kelmadda ninkaas sanatarkaas u dhashay beesha Coormale ka soo baxay waxaan ku cambaaraynaynaa beeshii ad ka dhashay oo saqayr iyo kabiir aan ku raacsanayn kelmadda meesha ad ka sheegay waxaa kaloo cambaaraynaynaa nin kasta oo ninkaas la ficil ah oo ka sheegay meeshaas wax aan loo baahnayn farmaajo ninkii diido waa nin Soomaalinimo diidan taasaan qiraynaa Xuseen Iimaan warbaahinta Koonfur Galbeed degmada Diinsoor